السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ذا قالي اسكو soo noqdo wanaagsan waa walaashii maandeeq caanood iyo mar kaleeto oo maantay in kaga faa'iideynaysa qaabka markaa timihii aad dubtid isbishale ciyaalka qaasatan ciyaalka markaa timihii u dubtiin qaabka timihii u kala bixin lahayd adoo gurigaaga joogtid iyo qaabka timahaaga nafaqa ama deep condition ugu samayn lahayd oo aad timahaaga gurigaaga aad ugu tekarkaraysan lahayd. asxaabtayda qaaliga sida hore kugu sheego janaalkayga wuxuu ku sameeyaan doonaa family care haday noqoto ciyaalka sida loo takarkareeyo haday noqoto sida ciyaalka loo diyaarsado iskuulka haday noqoto sidii falooqyada outside banaanka markii loo wadaayo kaleeto maantana waxaan rabaa qaabka timihii markaa dibtid u aragteen ciyaalka timihii waa ka gogo'ayaan adigoo wax dhibaato ah u marin iyo nafaqooyinka u isticmaalaysid gurigaaga aad joogto dhibka dhushka u isticmaalaysid ayaa maanta ila sheekayn doonaa sida hore iskugu sheegana subscribe waa xaqiina adigana fiiriyay ku tahay maadaama dhiirigelin ayay u tahay wixii tala iyo tusaalana commentiga waa igu soo qori kartiin ama commentiga waa igula soo xiriiri kartiin wixii su'aal ah qabtiin waan kaga soo jawaabi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan lana share gareey asxaabtaada iyo familkaaga sida ayagana uga faa'iidaan videogan quruxda badan hadee intaan video lamida dib ugu kulmi doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. aqyaarteeda maanta waxaan baranaynaa qaabka timaha loo furfuro oo timaha iskugu ka dhagan qaabka inta loo dhaqo oo adoo aad cunugi madax aad ka xanoojin saaluun aad u baahan saa timaha ugu furfuray timaha sadda laba galaan ahaayeen gacanta ayaan ku soo furfuraya hadaa tiraa timihii saan inta furfuro ashaabo ku dhaqaya oo isku sii dhagayaan timaha marka hore gacanta lagu soo furfuraa si kal iyo laab la gacanta loogu soo kala bixiyaa marka saas oo kale iskaga ka dhagan yihiin marka gacanta iskaga soo kala bixisid hadaa tiraa saas ayaga biyo qoyaan taabsiina oo isku sii dhagayaan marka gacanta markaas oo ujeedada tartiib ah soo kala bixiyay gacanta ayaan ku soo kala bixiyay oo waa diyaar markaas ayaan shaambadii ku soo dhaqayaa hadaa tiraahdo laakiin ayagoo saana shaambadii ku dhaqa nab waa isku sii dhagayaan aqyaare waa kaasa shaambada hadda soo qaadanaya gurigeyga anoo fadhiya cunuga waa wadaya shaambadaas ugu dhaqaya aqyaare waa inay sheega shaabooyinka artificialka ah isticmaalina shaabooyinka professionalka isticmaala shaambada ugu soo dhaqaya si fiican ayaa ugu soo dhaqaya ka bacdina nafaqadaas ayaan u mareynaa nafaqooyinka waa kaasa oo professionalka waaye lagama sheekeyn karo waa kaasa ujeeda nafaqooyinka aniga waa iga heli kartaa online-ka waa ka heli kartaa aqyaare waa kaasa qasamahan inay bacda noocaas u ekaato qasamahan inaa kaasa gelisid waa kaasa maski ujeeda bacaha adeega ku soo gadatid ku xiran kartaa kaasan uma baanada 30 daqiiqo hal saac ku sugaysa ma ujeeda dhag timihii waa nafaqada la soo mariyay hal saac ka bacdi waa soo dhaqay markaan soo dhaqay ma ujeeda timahaas hadda dhibaato dhan kama maraysid aan ku dhahay timihii marka gacanta ku kala bixisid shaambada aad ku dhaqdid ka bacdi ilaaha kuma darnaaday nafaqada u marisay hal saac ka bacdi ka soo dhaqdid timihii saas u kala baxeen lagama sheekeyn karo war leemaan wadaynaa aqyaare waa kaasa hadda timihii balow daraayana ku sameynaysaa ama geedka lagu qalajiyo ka bacdina istireeda ka dhigaysaa saaluun inaad dhibaato u martid ama adoo gurigaaga joogtida ilmahaaga aad timahooda takargarayn kartaa muhiimadda waxaa waaye inaad shaambo iyo nafaqa saxa ah haysatid waxyaabaha meelaha lagu gado 100 mara inay sheegay timihii uma roona timihii waa kaa gogo'ayaan daryeel dadkan nagama timan qorxoona timahooda way daryeelaan waxyaabaha professionalka waxaan ahayn kuma dhaqdaan mujeedada gurigeyga anoo fadhiya gabadheeda timaheeda maasha Allah soo dhaha aan ka taxadiray waa kaasa aqyaaray hadda waa soo qalajinaya ka bacdina istireeda ka soo dhigaya dhibaato dhan uma maraysidaan ku dhahay wax yar ay kugu qaadanaysaa mujeedido laakiin hadaa tiraahdid timihii isku dhagdhagana inta shaambo ku soo dhaqo sidaan sameeyno waa furfurayna timihii dabitaan laga furfuray shaamba lagu sii dhaqa dhab ay isku dhahayaan markaas cunugii adna waa jafaalinaysaa adigii waa daalaysaa cunugii madaxa xanuunaya waa isku wareeraysiin laakiin markii adoo inta kale gacanta ku kala bixisid shaambada ku soo dhaqlid nafaqada u marisid hal saac u kaadisid bac hadaa rabto cunugaaga uu soo dhaqdhaqaaqayno guriga ka haleyneen bac xataa uma baahnin laakiin hadaa isleeda cunuga waa ka dhaqdhaqaaqaya bacda ku soo xiranaysaa cunugaaga meeshaas iska jooga hal saac 30 daqiiqo kuma damage gareynayso hal saac 30 daqiiqo 2 saac inta adiga aad rabtid ayaa ku soo waxaysanaysaa aqyaare marka waa kaasa balow daraa ku soo sameysay ka bacdan istireedka ka dhigtay timihii saas ay ku soo baxeen maanta dhawr le maalawada waa kaasa aqyaare gabar waa gacan ku hayn hadaa tiraa laakiin shaambo kasto iga hortimaado shaabooyinka Soomaaliya anaga hadaan nahay shaabooyinka waa bedelnaa koow qaladka laba shaambada ugu raqiisan tahay ayaan ka fiirinaa raqiiska ha fiirin waxaa fiirisaa benefitka aad ka helaysid waayo timaha hadaa tiraahdo shaambo kasto raqiis oo meelaha laga keenay aan u gelinaya aan ku dhaqaaya
adiga le ilmahaaga timahooda waa ku dhashay ana timahaaga waa ku dhashay akhyaare waa kaas shaabooyinka professionalka isticmaala hadda war lema wadaynaa subscribe-ka adiga saa hore in kugu sheegay subscribe-kana hanaga hilmaamin adigana firiya ku tahay maadeeqna dhiirgelin ayay u tahay wixii talo iyo tusaale oo rabtiin inaa inii soo badiyana commentiga waa igula wadaagi kartiin like-ta iyo share-tuna waa xageena intaan video lamid ah dib ugu kulmi doono waa ina kaasa